nin baa jira boqor ahaan jira. ninkaa boqorka ah wuxuu ahaa ilaahay baan ka magan galnaye nin aada u kibir badan, gaalna wuu ahaa. maalin buu markaa safar buu diyaargaroobay. markuu diyaargaroobay wuxuu yihi dharka ii keena. kasaa la yidhi dharkan kan mid baa loo keenay. wuxuu ihi ma rabo, ka ugu quruxda badan baa aakhirkii markii dambe loo keenay. wuxuu ihi markab baan u baahanay. markabku waa wax uu fuulo oo uu ku safro. kanaa loo keenay geenyadan, faraskan, kan kale wuu diiday ilaa tii ugu wanaagsaneed uu ka qaatay. wuxuu ihi waxaan u baahnay xawaashidaydii iyo dadkii galbinayay iyo dadkii ila socday iyo askartaydi. waa la soo buuxi. subxaan allah. wadadii buu maray. markii wadadii maray baa nin faqiir oo aada moodid inuu faqriga dhuuban oo caata ah oo faqriguna uu ka muuqdo ayaa ka hor yimi. boqorkii buu yidhi istaag. kaasuu yihi warayaa ninkaagaas yaanaan ku dilina ka dhaqaaq wadada. wuxuu dhahay dhaqaaqi maayo, wallaahi baanaan dhaqaaqin buu yidhi ilaa yaan adiga kula hadlo. boqorkii baa yidhi isagoo kibirkii sanka saa u taagaya, waa bal soo ogolaad sii daaya hayla hadlee. wuxuu dhahay ninkii faqiirka ahaa anigu waxaan rabaa inaan si sira kuula hadlo, si sir ah ee kasoo deg meesha. wuxuu dhahay war anigu maxaad ahayd sidaan kuula hadlaa ma nagasku mustawaba ah. wuxuu dhahay dhaqaaqi maayo haddii kale. boqorkii baa kasoo degay markabkii ama wixii uu ku safrayey. ninkii baa la hadlo wuxuu ku yihi war may garanayso. wuxuu hi may. wuxuu hi waxaan ahay malakul mowt, malagii geeridaan ahay. subxaan allah. wuxuu dhahay war ii ogolow aan caruurtaydii iyo ehelkaygi iyo xoolahaygii dardaarme. wuxuu dhahay wax lagu ogolaanaya ma jirta. wuu ka siibay isagoo qolfoofa oo sida looxa ayuu ugu dhacay halkaa. ninkaa gaalka ahina saasaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ruuxdii uu kaga qaaday. oo ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum waduuquu cadaaba alxariiq dalika bima qadamat aydiikum waana allaha laysa bidalaami lilcabiid. ilaahay wuxuu yidhi ka war ma aragti ma la socotaan markay malaa'igtu ay ruuxda ka qaadayso ee ay oofsanayso kuwa gaaleed waxay garaacayaan wejiyadoodaba dharbaaxa iyo garaacid loola dhacayaa iyo dabada laga garaacaya. waxaana la leeyahay dhadhamiya cadaabkii, dhadhamiya hee cadaab aada u daran oo olol iyo markaa gubasho u saaxiiba. oo maxaa waxaa loogu abaalguday dalika bima qadamat aydiikum, waa wixii aad hormarsateen, gacmihiinu ay hormarsadeen, waa xumaantii aad samayn jirteen ayuu ilaahay yidhi. ilaahay waxa kaloo uu dhahay ilaahayna ma aha mid addoommadiisa dulmiya oo dulmiya cadaalad darra kula kaca. qof walba waa wixii u kasbaday buu rabbiga weyne uu yidhahay subxaanahu wa tacaala. su-aasha kale aan isweydiinayna ayaa waxay ay tahay sidee buu malakulmowtku arwaaxda ama ruuxda uu u qaadaa. dabcan xadiidkaana maaragtay ama su-aashaana waxaa ka jawaabay xadiiskii aynu hadda ka hor soo marnay ee ahaa xadiidkii imaamu axmed uu musnadkiisa uu kusoo saaray raximahullah ee ahaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay marka addoonku uu adduunyada sii gabagabaynayo aakhirana uu bilaabayo inay malaa'igtu soo degayso. kolkaa marka ruuxa mu'minkaa ruuxda laga saarayo nebigeenu wuxuu yidhi waxaa looga saarayaa sida maaragteen weel ay biyo ku jiraan, dhibicdii yarada u dambaysay ay ku hadhsan tahay, siday qaabka yaree fudud ee sahlan ee ay u tiflayso dhibicda yara u dambaysa oo ay u tiflayso, sidaasoo kale ayaa malagu uga saarayaa ruuxii mu'minka ahaa. si yaroo dabacsan ayuu uga saaraya, ruuxdii uga saaraya, isagoo leh ruux yahay wanaagsani soo bax oo usoo bax, rabbi ku naxariisanaya raallina kaa ah. subxaan allah. udkhuli fii cibaadii wadkhulii jannati ayaa la leeyahy. addoommadayda saalixiinta macooda la gal, jannadana gal ayaa rabbiga weynu leeyahay subxaana wa tacala. waa ruuxii mu'minkaa qaabka uu u dhimanayo walciyaadu billah. si qaabka uu uga saaro malakulmowtku ruuxa gaalkaana waxa weeyaan wuxuu rasuulkeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa sida maraboobta oo kale. soomaalida arki maraboobta waxay leedahay qodxaan kugu dhegdhegaya, maradaada ku dhegdhegaya oo kale. oo marku uu malabkii uu yimaado geeridii uu xaqiiqsado qofkii gaalka ahaa, ruuxdiisii baa cabsanaysa oo jidhka ku yaacaysaa, mana rabto inay ruuxdu jidhka ka baxdo. dabadeedna malabku si xooga buu uga soo fujiyaa iyadoo la mooday sida qodxaanta oo kale, oo sida maraboobtaas maradaada ku dhegtay oo kale ayaa laga soo fujiyaa ilaa iyo xubin kasta iyo sal kasta iyo unug yaroo kastoo jidhkiisa ka mid a uu ka dareemo xanuunka geerida iyo sakaraadka geerida. ilaahay baan ka magan galnay. qaabka noocaasa ayuu muslimka iyo gaalka uu malagu ruuxda uga qaadaan. su-aashaan isweydiinayna kale waxay tahay sidee buu malakulmowtku ama qaab noocee ah
ayaa malakulmowt calayhi salaam uu ruuxda uga qaadayaa qof jooga africa iyo qof jooga latin america oo hadday doonaan shil baabuur ku dhintay dhammaantood ama dhulgariir ama intaasoo kun ama intaasoo malaayiin oo qof hal mar oo meelo kala duwan jooga siduu uga qaadaya ruuxda. ta koowaad waxaanu leenahay malagga wuxuu leeyahay acwaan iyo kuwa maaragtay caawiya ayuu leeyahay, sida ilaahayba qur-aanka inoogu tilmaamay, xadiidka nabigeenuna inoo sheegayay inuu leeyahay kuwa sii caawiya oo markaa ruuxda soo dhaweeya dabadeedna malaggu uu yimaado ruuxda uu ka siibo malakulmowtka. ta labaad ilaahay baa wuxuu siiyey malakulmowtka quwad iyo qudrad iyo awoodda ah in uu meelo kala duwan markaa waxa weeyaan uu ruuxda ka qaado oo masaafada iyo bedka magaalooyinku ay isu jiraan ayaa ilaahay usoo dhaweeyey subxaana wa tacaala. mujaahid raximahullah wuxuu leeyahay malakulmowtka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey awoodo gacantiisa waxaa ku jirta adduunyada oo dhan oo waa sida ka dasti sida baaf ama saxan oo kale ayaa maaragta adduunyadu ay u tahay. marka sida baafkaas ama saxankaas ayuu gacantiisa ay ugu jirtaayo kuu doono meesha uu doono ayuu ruuxda ka qaadaya. qofkii lagu yidhaahdo ruuxda ka qaad sidaasunbuu ka qaadayaa. marka waa malag ilaahay uu awoodda intaa leegu siiyayo ilaahay baa maaragtay subxaana wa tacaala qudradda iyo awooddaa siiyey, isaguna markaa awaamirta ilaahay buu sideeda u fulinayaa subxaana allah. waxaynu intaa ku daraynaa su-aasha kale ah malaggan malakulmowt ah isagu ma geeriyoonayaan? malaa'igtu guud ahaan ma dhimanayaan? subxaana allah, jawaabtu waxay tahay sida saxda ah ee raajixa ah malaa'igtu way dhimanayaan. ilaahay qur-aanka wuxuu noogu sheegay kullu nafsin daa'iqat lmowt, naf kastaaba geeri bay dhadhaminaysa. nafta aadamaha iyo malagga iyo noolo kastaaba. subxaana allah, kullu shayin haalikun ilaa wajha, shay ma jiro ilaa hadduu jiroba wuu halaagsamaya rabbiga weyn mooyaane subxaana wa tacaala. kullu man calayha faan, wax allaala waxa dhulka dusheeda joogaana way dhimanayaan. marka aayaadkaas markaan isku dardarno dhammaantood waxay noo sheegayaan in malaa'igtu sidoo kale ay dhimanayso. waxaa kaloo jirta xadiis dheer, xadiis aada u dheer oo loo yaqaano xadiidu suurka ama marka suurka la buufinayo ama buunka uu afuufayo malagga loo yaqaano israafiil calayhi salaam ka warramay. xadiidkaasi markaa waxaa soo saaray imaamu dabari ayaa tafsiirkiisa ku sheegay, sidoo kale dabarani raximahullah isna maaragtay mucjamkiisu ku sheegay, ibn abi dunya sidoo kale. xadiidkana yacni amaana cilmiya si aynu maaragtay u gudanno xadiidka sanadkiisa iyo matnigiisaba culummadu way ka hadleen. waxay dhaheen xadiidka maaragtay fiihi kalaam, hadal baa jira maaragtay sanadkiisa oo la yidhi sanadkiisa waxaa ku jira rag daciifa ama rag maaragtay tamar yar oo axaadiistooda aan la qaadanin. marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa in malagga loo yaqaano malakulmowt calayhi salaam uu hoos imanaya carshiga raxmaanka oo rabbiga jabbaarka ah uu imanay. uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala yaa hadhay koonkan yaa ku hadhay oo nool. wuxuu dhahayaa malaggii ilaahayo waxaa hadhsan adiga oo ah alxayu aladii laa yamuut, noolaha aan dhimanaynin adigoo ah, iyo anigoo malakulmowd ah, iyo waxa hadhsan mikaa'iil iyo jibraa'iil baa hadhsan. ilaahayna wuu og yahay subxaana wa tacaala. dabeetana ilaahay wuxuu dhahayaa ruuxda ka qaad mikaa'iil iyo jibraa'iil calayhum assalaam. carshigii ilaahay baa hadlaya oo dhahaya yaa rabbi ma mikaa'iil iyo jibraa'iil ayaad ruuxda ka qaadaysa? ilaahay baa dhahaya wax allaala wixii carshigayga ka hooseeyaan ku xukumay dil iyo inay dhintaan. malaggii malakulmowt baa tegaya, ruuxdii buu ka qaadayaa mikaa'iil iyo jibraa'iil calayhum assalaam, wayna dhinteen. kadib buu soo noqonaya, markaasuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala yaa hadhsan oo aan dhimanin. markaasuu dhahayaa rabbiga weynow adigoo ah alxayu aladii laa yamuut, allaha noole aan dhimanaynin, iyo anigoo ah addoonkaagii oo ah malakulmowt. ilaahay baa dhahaya markaa malakulmowtkii mut, dhimo malakulmowdow, dhimo malakulmowdow. fayamuutu malakulmowt, malakulmowt baa dhimanay. marka uu ruuxdu iska gurayso ee ay ruuxdu ka baxayso ayuu markaa malakulmowt dhahayaa ilaahayow haddaan moodayay xanuunka noocana sakaraatulmowtka cid addoommadaada ka midaba ruuxda kama qaadi lahayn. famaata malakulmowt,
malakulmowtna wuu dhintay calayhi salaam. markaasa ilaahay wuu hadlayaa subxaanahu wa tacaala adduunyadii oo haawanaysa oo cid nooli baanay jirin, iyo koonkii oo dhan oo cid nooli aanay jirin, rabbiga weyne alxayu aladii laa yamuut mooyaane, rabbiga nool ee aan dhimaninin mooyaane. markaasuu ilaahay dhahayaa liman ilmulku lyowm, maanta mulkiga, hantida iyo boqortooyada yaa iska leh. cid u jawaabtaa ma jirto, rabbiga weyn subxaanahu wa tacaala isagaa naftiisa u jawaabaya. lilaahi alwaaxidi alqahaar, ilaaha waaxidka kelida ah ee qahaarka ah ee sifada qahaarka iska leh ayaa ilaahaas unbaa maaragtay mulkiga iska leh subxaanahu wa tacaala. ayna muluuku lardi, meeda boqorooyinkii adduunyada? ayna america, ayna israa'iil, ayna alkufaar, ayna bni aadam, aadamihii mee qooqi jiray? aadamihii mee dadkii waalnaaya adduunka ku waalan jiray meeyeen? maatuu kulluhum, dhammaantood waa dhinteen. subxaana allah, laa ilaaha ila allah. wahaakada yamuutu malaku lmowt, sidaas ayuu ku geeriyoonayaa malakulmowt. aakhiro subxaana allah, ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamada ayuu dib usoo saaraya malaa'igta iyo dabcan noolihii kale oo dhan ilaahay uu soo xashiranayay subxaana wa tacaala. maalintaa markuu ilaahay uu kulansiiyo rabbiga weyni, ehelka jannaduna ay janno galaan, ehelka naartuna naar ay galaan, naartana ay ku hadhsan yihiin intii maaragtay ilaahay aan tawxiid ula imanin. jannadana markaa ku kastoo jannada ilaahay u qoray uu jannadii uu galay oo la kala xukumay, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u yeedhayaa mowdkii. waxaa imaam albukhaari iyo imaamu muslim labaduba isku waafaqeen oo xadiidkan ay soo saareen raximahum ullah, xadiidkii abi saciidin alkhudriyi radia allahu canh uu yidhi nebigii ilaahay baa dhahay yu'ta almowt, geeridii iyo dhimashadii baa la keenayaa qiyaamadii. waxaa la keenayaa meel u dhaxaysa jannada iyo naarta. ehelka jannada loo yeedhi, markaasay soo eegayaan oo soo fiirsanayaan iyagoo qooraansanaya. ehelka naartana waa loo yeedhi iyagoo daawanaya oo arkaya. markaasaa la weydiinayaa, war ma garanaysaan kan? waa mowdkii iyo geeridii. wa kulluhum yacrifuun, dhammaantood kulligoodna way garanayaan, waayo mowdkii waa dhimashadii ay soo dhadhamiyeen, way wada garanayaan. dabadeedna yudbax almowt, dhimashadii ayaa la gowracaya. markaasaa fayunaadaa munaadii, ku dhawaaqayo wuxuu dhahayaa yaa ahla aljanna khuluud falaa mowt, waya ahla annaar khuluud falaa mowt. mid dhawaaqay baa dhawaaqo wuxuu dhahayaa ehelka jannadu waa waarid iyo abidulaabidiina, dhimashana ma jirto. ehelka naartow waa waarid abadulaabidiina, dhimashana ma jirto. dabadeedna ehelka jannadu way farxayaan. farxaddoodiibaa waxa uu loogu daray farxad kale oo aanay ka dhimanaynin. kuwa ehelka naartana murugaa gelaysa, muruga aanay ka dhimanaynin. walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin. laa yamuutuuna fiiha, kuma dhex dhimanayaan. laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa, ma dhimanayo mana noolaanayo naarta dhexdeeda. dhimashana kuma jirto, nololna caadiyana kuma jirto. walaa yuqdaa calayhim, lamana dilayo. walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin. waa nolol noocaas oo abid ah iyo cadaab. ilaahay baan ka magan galnay subxaanahu wa tacaala masiirka noocaas iyo cidhib dambeedka noocaas ee kufriga iyo gaalnimadu ay keensanayso. ilaahay baan ka magan galnay. sidaas ayay noqonaysaa markaa cidhib dambeedka geerida iyo dhimashada. geeridii wax dilaysa iyada laftigeediiba la gowracayba subxaana allah, sida xadiiskaa saxiixa ahi uu noo tilmaamay. inahaas aan ku joojino ama aan kusoo gebagabayno taariikhdii aan kaga warramaynay malag ka mida malaa'igta ilaahay oo ah malakulmowt calayhi salaam. baaraka allahu lakum wajazaakum allahu khayran wagafara allahu lii waiyaakum, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh.